وقوان دليي كلا أركت دوانان يقعدون مدح رقميد وبيلها هبر جعلو لحدوده وارقورنا إنه محمد أبو بكر يا موسى أبو بكر نقنشبه وارقورنا إنه نقنشر ندي دي هبر جعلو وطا ويهودي نواقع هو أسون باي نو قدية ما يهيري إنه أقل مدو لو قلت للمايو ما أنت ودن ما يعنو عيلة فوين وحلوات عيبة فوين دي بدأ وقصاريا يعني كان ستراح هبر جعلو معها beeshan ayaa lagu majeeran jiray talada midaysan iyo inay meel wada maraan haddaba saameyn intee leeg ayuu ku yeelan doonaa midnimadii deegaanka waayeelkii dhawaan magaalada Ceelifweyn ka soo saaray warmurtiyeedka madaxweyne biixi iyo xisbiga kulmiye muxuu yeeli karaa go'aankani kalsooni intee leeg ayayse ka haystaan xubnaha go'aamiyay talada tan deegaamada habar jeclo muxuu u dhimi karaa sumcaddii dimuqraadiyadda iyo habsami u socodkii doorashooyinka Soomaaliland halkee ayayse ku dambayn doonaan mustaqbalka iyo midnimadii beelaha habar jeclo warbixinteennan ayaynu ku faraqaynaynaa qodobadaasi tan iyo markii ay soo saareen warmurtiyeedka madax dhaqameedka magaalada Ceelifweyn waxa soo baxaya kala taganaan iyo kala tafaraaruq beesha habar jeclo dhexdeeda taasi oo aan looga baran dadka reer Soomaaliland ay si weyn indhaha ugu hayaan dhacdadani ayaa dhalisay aragtiyo iska hor imanaya waxana si weyn ugu kala tegay madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta deegaankan ka soo wada jeeda oo wartabiyayaasha isu marinayay saacadihii ugu dambeysay weerar iska hor imanaya uqaal iyo siyaasiyiin kala duwan oo meelo kala duwan ka hadlay ayaa sheegay go'aankaasi mid loo dhan yahay inaanu ahayn halka ay waayeelkii gooyay taladanna ilaa iyo haatan ku adkaysanayaan inay ka taliyeen midnimada iyo inay meel wada marto beesha habar jeclo waqtiga uu qaatay oo yaraa iyo falcelinta ka soo noqotay marka loo eego waxa uu muuqanayaa go'aankani mid aan looga fiirsan si beesha habar jeclo midnimadeedu ay u sii jirto balse uu ku biyo shubanayo go'aan siyaasadeed iyo cuqaal kala taageersan asxaabta Soomaaliland marka la eego siyaasiyiinta han kale ee deegaankan ka soo jeeda dhacdada kale ee go'aamada tan hoos u sii dhigaysa qiimahooda ayaa ah in lagu kala dhaweystay oo qaarkoodna lagu siiyay sid aan lahayn halka aan qaarka kalena la soo qaadin siyaasiyiintii aan goobtaasi lagu soo qaadin ee wax ka tirsaday ayaa waxa ay taagan yihiin inay taladu ugu goodo suldaanka guud ee beelaha habar jeclo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali oo haatan wadanka dibadiisa safar ugu maqan deegaan hoosaadyada ay ka soo jeedaanna aragtidan ayaa saameynaysa oo ma qabi karaan mid ka duwan oo ay ku raaci karaan waayeelka go'aanka ku gaaray Ceelifweyn xeeldheerayaasha siyaasadda iyo falaqayayaasha dhaqanka ayaa odorosaya xisbiga kulmiye iyo madaxweyne biixi inay tani cod soo kordhin karto haddii ay kala tafaraaruqdo beesha habar jeclo oo aanay cod ahaan iyo tala ahaan meel wada marin tanina waxa sababaysa haddii kala tala la noqdo kala dan ayaa la noqonaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay qodobo u wada cuntami kara wax garadka iyo siyaasiyiinta deegaankani inay ka soo bixin Ceelifweyn maadaama uu ahaa go'aan degdeg iyo caatifadi ka muuqato balse ay beeshu leedahay suldaan guud oo talada looga dambeeyo go'aanka uu gaadhona aan cidina uga dambaynayn cuqaasha ka falcelisay warmurtiyeedkan oo ka hadashay magaalooyinka Burco Ceelifweyn iyo Caynaba ayaa waxa ay sheegeen in aanay beelaha habar jeclo u dhamayn saami qaybsiga deegaankan dhexdiisa ayaana ilaa iyo haatan qalooca oo aan laga gaadhin qaab ay ku wada qanacsan yihiin siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka haddaba beeshan midnimada iyo meel wada marka caanka ku ahayd ee ku soo caanan maashay waa halkee marjaca ay u noqonayso ee saxaya wixii khaldan maxayse tahay go'aamada Ceelifweyn falcelinta ka soo noqotay iyo saameynta ay yeelan karaan lambar 1 ilaa iyo haatan waxa muuqanaysa inay madaxweyne biixi iyo xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye waxba u dhimaynin go'aamada tani mar hadaanay dhinac isugu raacin deegaanka lambar 2 inay dhalinayaan kala tag iyo kala tafaraaruq dhinaca madax dhaqameedka iyo waxgaradka lambar 3 gudida beelaha habar jeclo oo aan haysanin kalsoonidii loo baahnaa maadaama oo aanay waajibkii loo baahnaa ka gudan xilliyadii weerarka lagu soo qaaday deegaamada beesha oo ay ka mid ahayd Buqdharkayn iyo Qorilugu iyadoo markaaba sababaha talaabada looga qaadi waayay loona kasban waayay kalsoonida deegaamada tan ka mid ah beesha ay ahayd kala aragti duwanaan siyaasadeed oo madax dhaqameedka qaarkiis ay qabeen in difaac loo baahnayn hase yeeshee ay doorashadu ka muhiimsan tahay halka ay qaar kalena qabeen difaaca deegaamada heerka inaan waxba la dhaafsan karin oo ay tahay muqaddas qodobka afraad ee go'aamada tani ay muujiyeen ayaa ah siyaasiyiinta hanka leh ee deegaanka ka soo wada jeeda oo lagu kala dhaweystay
qaarkood oo aan ku qanacsanayn go'aankan midnimada deegaankana kala dhantaali kara. Lambar 5 ilaa iyo haatan heshiiskan siyaasiga ah waxa ay ku bedesheen madax dhaqameedka iyo waayeelka go'aamiyay ayaan beelaha habar jeclo isla ogeyn kuna kala aragti duwan. tanina waa mid kale oo sababi karaysa go'aamada tani inay meelmar noqon waayaan iyo qodobka 6 oo ah marjaca loo noqonayo waa suldaanka guud ee beelaha habar jeclo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali. ila wareedyadii ugu dambeeyay ee la helayaana waxa ay sheegayaan inaanu suldaanku ku qanacsanayn go'aamada Ceelaf Weyn ka soo baxay iyo waayeelka gorfeeyay. haddii uu suldaanka guud ka soo horjeesto go'aamada Ceelaf Weyn ayaa waxa ay noqonayaan halbacaad lagu lisay, halka ay madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta aan shirkaasi qaybta ka ahaynina ku dhaadanayaan isimkan dhaqan go'aanka uu gaari doono. go'aamada tani ayaa ku dambayn kara laba mid uun sida xeeldheerayaashu u darosayaan. lambar 1 waxa ah in ciddii lagu taageerayayna aanay waxtar fiican u yeelan midnimada iyo wada tashiga beelaha habar jeclana kala dhantaalaan, iyo inuu soo gabagabeeyo suldaanka guud ee beelaha habar jeclo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali.